halkan muxuu ahaye inaan muxuu ahaye ka sheego yani kulli waxaad isweydiinaysaan oo dee kulli warbaahin baa tiino meelahaad isweydiinaysaan iyo maxkamaddii iyo siday ahayd iyo arrimahaas laga yaaba inaad isweydiisaan yani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo guddoomiyaha maxkamadda sare hadalladoodii siday u kala duwanaayeen iyo siday isaga hor imanayeen garsoorihii xukunka igu riday iyo wixii laygu soo eedeeyey waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yidhi ayaa muxuu ahaye idinku filan halkaa inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin oo muxuu ahaye dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobku inoogu dii waayey in laga soo daayiyo ooda laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaataysan baa jira sidaan la wada soconayba samafale cabdimaalig muuse coldoon wariyihii la dulmay ee xabsiga ku jiray ee dhibaatada ba'ani intaasi loogu geystay samafale ayaa haatan xaalad adag ay soo wajahday hadda hadalkan hordhaca aad aragtaan iyo codkan uu soo duubay waxa weeye xabsiga dhexdiisa ayuu cod ka soo duubay oo uu ku garab istaagayo walaalihiisa dhibaatadu ay ku haleeshay suuqa weyn ee waaheen dabcan cabdimaalig muuse coldoon siyaabooyin kala duwan ayaa looga shakiyey inuu xiriiryo la leeyahay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto inuu u adeegayo ururada xag jirka ee ka dagaalamayo dalka soomaaliya ama koonfurta soomaaliya si kastaba ha ahaatee maxkamaddii lasoo istaajiyey waxyaabihii caddaymaha ee ay kaysadeen c i d da waa lagu qanci waayey oo wakiil maxkamaddii ay dib u laashay kiiskiisa xornimadiisana in loo soo celiyo laysku ogaa si kastaba ha ahaatee halkan waxaan rabaa inaynugula wadaago sawiro iyo sidoo kaleeto muuqaalo ku saabsan nafsadiisa haatan xaalka ay ku sugan tahay iyo sidoo kaleeto daayiro laga muujinayo faamilkiisa ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin cabdimaalig muuse coldoon waxaaban ka shakisanahay inuu nool yahay iyo in uu dhintay maalin dhaweyta ayay ahayd markii xaaskiisa iyo sidoo kaleeto laba ka mid a carruurtiisa ay ku booqdeen xabsiga balse markii xabsiga ay tageen la sheegay in xabsiga cabdimaalig laga bedelay oo meel kale la geeyey haatanna ayn munaasab ahayn inay booqdaan ama ay u tagaan waxaan rabaa inaan sidoo kaleeto inala wadaago caddaymo ku saabsan meesha cabdimaalig sida rasmiga uu loogu hayo ama xabsiga uu ku jiro ayaan rabaa inaa inala wadaago hadduu allaydmo balse intaas ka hor hadday tahay markaadii kuugu horreysay ee barteenan youtube-ka aad soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad janalka subscribe noo saarto haddii aad horey noola sii joogtayna sii like garee oo sheertana sii badi sifa ay u gaadho daawadayaal wanaagsan oo adigoo kaleeta sidaan la wada soconayba cabdimaalig muuse coldoon xabsiga ayuu ku jiraa welina dhibaato ayaa halkaasi ku haysato iyadoo maxkamaddii gobolka maroodijeex qaybta racfaanka la rabay in la soo istaajiyo laakiin oo halkaasi la horkeeno maxkamadda waxay ahayd ballantii loo qabtay ee kama dambaystahaydii la rabay in maxkamadda la keeno taarikh 16 bishii aanu soo dhaafnay ee maaj balse arrintaasi ma aysan dhicin oo madaxweynaha ayaa dalka ka maqnaa kiiskani waaxda sirdoonka sida ay sheegtay wuxuu si toosa kiiskani u khuseeyaa u hoostagaysaa madaxweynaha iyo sidoo kaleeto laamaha amniga ee sida tooska u hoostago madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha dalka ayuu ka maqnaa markii uu soo laabtayna shaqaaqooyin kala duwan ayaa dalka ka dhacay wakii sheekhi weynaaye sheekh aadan sunni uu wadanka ka baxay oo amniga wadanka uu qilqil galay laamaha amnigu waxay ku mashquuleen iyo waaxda c i d da in ay raadiyaan caddaymo ku salaysan in sheekh aadan sunni iyo sidoo kaleeto ninka la yidhaahdo cabdimaalig muuse coldoon in xidhiidh uu ka dhexeeyey iyo wixii xidhiidh ee ka dhexeeyey inuu gaadhsiisanaa meesha haatan cabdimaalig aan dhehe sheekh aadan sunni u aaday arrintaasi ayaa lagu mashquulsanaa caddaymahaasina weli waa lagu maqan yahay iyadoo arrintaasi ay jirto haddana waxaa dhacay dabkii weynaa ee ka qaxay ama ka dhacay suuqii waaheen oo gebi ahaanba ganacsatadii reer hargeysa intooda badan ay hantidoodii ku waayeen halkaasi aan dhihi reer hargeysa ummad badan oo soomaaliyeed oo hargeysa ku nool iyo kuwa xataa ganacsi u imaanayay oo hantidooda lacag ahaan iyo kaash ahaanba ay u yaaleen meeshaas ayaa ku hanti waayay arrintaasi ayadoo jirto oo dhibaatadaas intaa leeg ay jirto haddanana waxaad moodaa in cabdimaalig la hilmaamay oo madaxdii iyo sidoo kaleeto laamihii amniga ay ku shuqulaa kiiska cabdimaalig muuse coldoon ay ka seexdeen waxaana arrintaasi haatan imaatay in cabdimaalig muuqaal uu iska soo duubo oo uu sheegayo
in ay laamihii amniga iyo sidoo kaleeto waaxdii CID-da iyo sidoo kaleeto aan dhehe nimankii maxkamadda joogay intooda badan ay ka hiiliyeen oo ayagu kiiskiisa cabdimaalik ayba bataatanba aan fiirinaynin oo gooni la iska dhigay oo lagu mashquulay howlo ayaga u gaara arrintaasi dad badan ayaa ka falceliyey oo reer Hargeysa iyo dhammaanba reer Somaliland dhammaan waxaan ogeyn in culimo badani ay ka hadashay kiiskan oo uu ka mid yahay Sheekh Aadan Sunni oo haatan galay ciddii looga shakisanaa oo in badan ka hadlaya xataa kaleeto soo bandhigay cadeymo ku saabsan arrinta cabdimaalik uu xiran yahay arrinta asaga laftirkiisa maxkamadaha loo keenayay yacni waxyaabo badan ayuu soo bandhigo aad u tiro badan oo halkan ayna kusoo koobi karin wuxuu sheegay in xataa howlihii cabdimaalik lagu haystay oo ahaa dugsiga Abaarso muuqaaladii uu ka duubay iyo sidoo kaleeto howlo badan oo halkaasi ayaga uu ka sheegay wuxuu sidoo kale u sheegay Sheekh Aadan Sunni oo soo kashifay in ay jirto yacni NGO-yo fara badan oo wadanka gudihiisa jooga kuwaasi oo si toos ah ugu xidhan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iska isku dhawaaqday taasina ay NGO-yadan intooda badan ay ka shaqaynayaan sidii itraaf lagu raadin lahaa oo wadanka uu noqon lahaa wadan ka madax bannaan Soomaalida inteeda kaleeto balse uu sheegay markii culimadii iyo annagoo fara badan ayaa qaylinay oo dhawaaqnay kadibna arrintii waxaa la arkay in indhaha ummadda reer Somaliland ay banaanka ay soo shacbaxday waxyaabihii hoosta ka qarsoonaa kadibna NGO-yadii intooda badan waa ay ka baxeen wadanka laakiin si dadban ayay uga shaqaynayaan gudaha Somaliland ayuu yiri Sheekh Aadan Sunni arrintaasi way noo cadayd oo waan ogeyn oo dugsiga Abaarso waxyaabihii ka socday waxyaabo aad u tiro badan bayd walow markii cabdimaalik la xiray oo social media intiisa badan arrintii ay soo shacbaxday ay macallimiin badan oo ka shaqaynaya gudaha ama iskuulka Abaarso iyo jaamacaddiisa markii dambe ay soo islaameen arrintana ay keentay dhawaaqii iyo qayladii aan ka wadnay social media arrintaasina ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa maadaama codkaanagii banaanka u baxay qayladanadii gaadhay social media iyo dhammaanba macallimiintii Abaarso halkaasi ka waday yacni gaalaysiinta iyo sidoo kaleeto duurgelinta dhallinyaradeena Soomaaliyeed ay markii dambe qaar ka mid ah ilaahay ku soo hadeeyay oo ina soo islaameen arrintaasi mahadnaqeeda ilaahay ayaa iska leh kadibna waxaa iska leh culimadeennii Soomaaliyeed ayagana masaajidda iyo meelaha la iskugu imaado ka sheegayay in waxa ka socdo Hargeysa iyo dhammaanba Somaliland ay tahay wax aan loo adkeysan karin indhahana laga qarsan karin haatan cabdimaalik muuqaalka uu soo duubay wuxuu ku garab istaagayaa uguna hiilinayaa walaalahoodii hantidoodii ku burburtay suuqa weyn ee Waaheen waxaana uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatada halkaasi ka dhacday waxaana uu sheegay anoo xabsiga ku jiro dhibaatana igu haysato xabsiga cadaalad la'aanna ku ah waxaan idinla qaybsanayaa dhibaatada ka dhacday suuqa weyn ee Waaheen ee hantidiinni aad ku weydeen wuxuu hadalkiisii ku soo koobay anigu cadaalad la'aan ayaan ugu jiraa xabsiga waxaana idinka codsanayaa in aad aan la dulminin kuwa dhexdiina ku jiro dabcan asaga ayaa isku jeedo iyo inta kaleeto ee la xiran ee xabsiyada ku jirto wuxuu sidoo kaleeto ka deeriyey dhibaato badan oo ka jirto xabsiga gudihiisa iyo dad aad u tiro badan oo wanaagsanaa oo loo xiray arrimo aad u fudfudud waxaana uu sheegay in arrintani ay tahay arrinta ciqaabta koowaad ee suuqa gubtay iyo sidoo kale dhibaatooyinka dhacayo inay arrintani u horseedi karto wuxuuna sheegay in ama uu ka codsaday culimada iyo sidoo kaleto dhalinyarada qalbidoodu fayowdahay inay arrintani ka dhidhiyaan oo ka hadlaan daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenu koobnaan uga hadlayna cabdimaalik iyo sidoo kaleto dhibaatada ka dhacday suuqa weyne Waaheen iyo falcelinta ka dhalatay kadib gubashadii suuqa weyn ee Waaheen intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono waxaynaga tegaa sidaas iyo ammaan Allah